iyadoo lagu jiro ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa maanta waxa uu lahaa xisbiga mucaaradka wadani waxaanu ku bedelay maanta gabi ahaanba xisbiga wadani kharashaadkii kaga bixi jiray ololaha deeqa u gaarsiiyay dadka danyarta iyo isbitaalada magaalada Boorama goobaha iyo xarumaha u gaarsiiyay waxa kamid ah isbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama iyo isbitaalka TBda ee gudaha magaalada Boorama deeqaani oo isugu jiray xoolo nool iyo raashin waxaana ugu horeyn ka gudoomay deeqdani mas'uuliyiinta isbitaalka dhimirka waxaana yiraahdeen ayaan uga mahadnaqaynaa ururweynaha ama xisbiga wadani oo maanta soo gaarsiiyay qaybta dhimirka raashin ka kooban bariis iyo sonkor iyo xoolo inta uu soo gaarsiiyay aadiya way badiyeen raashin fiican soo gaarsiiyeen raashinkan aad baa loogu baahnaa xisbiga dhamaantii madax sare ilaa iyo inta uu codeyn doontaba way ku mahadsan yihiin insha Allah waan uga mahadnaqaynaa geestooda waxa hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani waxaana ka dhawaajiyeen marka maanta waxaan u bedelanay soo baxyadii aan soo bixi jirnay barxadaha sida khayriyada kale waxaan u bedelanay inaan doornada la qaybsano waxaanu ka nimay halkii hore waxaanu mimkana joognaa isbitaalkii weynaa waxa kale maanta sharafi ah anigoo gudoomiye campaign-ka gobolka ah halkan waxaan keenay raashinkii macaawinada ahaa ee xisbiga wadani ugu talagalay dadka nugul hore waxaan u soo geynay dadka la nool viruska HIV hadda waxaan taaganahay custalka TBda aan leena TB hospital Boorama deeqdan kooban iyo intan xoolihii waa qadam maalineed oo xisbiga wadani uu ka soo jaray wixii maanta ololaha ku gali lahaa waan idin la damqanaynaa Allah idin caafiyo ilaahay wuxuu isku naxariisto waan idin naxariisanaya runtii aad iyo aad baan u rajaynayaa isbitaalka Boorama inuu noqdo maalmaha kamid ah sidoo uu bari ahaan jiray isbitaalka culays waxaan ahayn kumay soo kordhin waan arkaysan calankii wadani raashinka oo hoos yaale macaawinada ah ee la dhigay wad arkaysaan ee lagu caawiyay intaas horta tusaalaydu ku filan lagaga daweyn jiray in muxuu ahaa xanuunka TBda laakiin nasiib darro wadinka maanta arkaya wax daryeel ah iyo wax dawaa oo ay helaan ma jirto labadii hay-adood ee caawin jireen way ka tageen sida uu sheegay gudoomiyuhu annagu waxaanu ballan qaadaynaa haddii talada dalkaanu la wareegno in isbitaalkani uu sidiisii u shaqeeyo dhakhaatiirtii soo noqoto inta liidata ama inta dhibaataysan waxay ka yeesho dadka xanuunsanaya dumarka iyo carruurta maanta wadani wuu cadeeyay inuu u gurmanayo inta dhibaataysan inta xanuunsanaysa ummadda quruxdeedana calaamada lagu gartaa waxa weeye inta ugu liidata markaa maxay ka yeeshaa waxa qabaalkiisa isaga oo aan kala haynin wad arkaysiin xisbiga wadani waxa uu qabanayo taasoo tala inii qabtana waxaad ka rajaynaysiin inigu baad garanaysiin Hussein Ataye Jamaat Rafiish Caalamka University TV gudaha magaalada Boorama